sheekadeenna maanta waa sheeko yaab leh oo waxa ay ku tusinaysaa in aad bini aadamka Ilaahay abuurtay wax walba aad ka filatid haddii aad ixtiraam u muujisidna sidii uu doono uu kula dhaqmi karo illa man rahima rabbi maahane sheekadeenna maanta waxa ay ka dhacday dalka Morocco sanadii 1988 magaalo la yiraahdo Kalnim oo ku taala dalkaas waxa deganaa nin la yiraahdo Cabdiqaadir waxa uu ahaa nin askari ah qoys leh 4 ilmood u joogaan 2 wiil iyo 2 gabdhood ah labada gabdhood midood ayaana curad u ah oo inanta u curada waa 16 jir mana aha 16 jirkii caadiga ee aan naqaanay waxa ay ahayd inan 16 jir ah laakiin aqligeedu 2 jir yahay qof maskiin oo iska xanuunsan oo dhiman waa 16 jir laakiin waa ilmo dhashay sidii ilmo caruur u dhaqmaysa aqligeedu waagay 2 sano jirtay ayuu koritaanka joojiyay inanta waxa ku xiga 2 wiil oo midna 9 jir yahay midna 10 jir yahay waxana ugu yar inan 7 jir ah inanta yar ee 7 jirka ah ayaa reerka dhan u cadcad oo inan yar oo aqlilay ah ayay ahayd faham badan oo walaalaheed iyo reerka dhan ba isku duuday Cabdiqaadir waxa uu ahaa askari ka shaqeeya xuduudda dalka oo 7 bilood markii uu xuduudda fadhiyay ayaa 22 maalmood kaliya la soo fasaxaa 22 maalmood kadibna shaqadiisu ku soo noqdaa 7 bilood kadib ayuu hadana soo noqdaa saasuu ku socday noloshooduna waa isaga kala kacsanayd caadi nimcadooda jarnayd gabadhii uu Cabdiqaadir qabay ee caruurta dhashay maadaama odaygeedu inta maqan yahay oo iyadu aqligeeda iska tircid la dareemaysa waxa ay isbarteen in la yiraahdo Maxamed inan dhalinyaro ah oo iyada da'adeeda ah jir ahaan iska qurux badan inankii bay saaxiibo lilaahi noqdeen saaxiibtinimadii lilaahi ahaydna waxa ku xigtay soo socod oo Maxamed guriga islaanti Cabdiqaadir kama uu bixi jirinba waxaad moodaa inuu asagu odayga reerka yahay waa u soo rawaxaa si caadi ah caruurtiina waxa ay ka dhaadhicisay inuu abtigood yahay Cabdiqaadir markii uu xoogaa joogaba islaantiisa waraaqad ayuu soo diri jiray oo xaaladda caruurta ka wareysanayay iyo xaaladeeda una sheegay inay isaga dulqaadato sidoo kalena ku amaanay inay tahay qof dumar oo fariido dulqaadasho badan lacagtan xagaas uga soo diri jiray lacag feerihiisa ka soo go'dayde ileen waa askari halka ay islaantiisu dhib mal waraaqadihiisa uga soo jawaabto ayada iyo Maxamedna maskiinkaas dhaxanta jooga lacagtii uu feerihiisa ku soo dhiciyay ayay si deganaan lagu mushaaxi jireen Maxamed iyo islaantii Cabdiqaadir markii ay dhowr bilood iswateen ayay dariskii oo idil ka shakiyeen maadaama ay Cabdiqaadir yaqaaneen wuxuu yahay ba ninkan si dawdalaaqla guriga oo marna sii socdo marna soo socda waxay shakisnaadaanba maalintii dambe laamiga ku istaajiyeen oo dhaheen wariyaahe yaa tahay adigu xagaad ka socotaa suuyirha aniga gabadhan wax isku nahay maalinba qof baa istaajiyo maalinba asaguna waxbuu u sheegaa cusub maalintii dambe islaantii u yimiyo yirina yaa aniga may maqashaa hawshu deesaan ku socon mayso dadkii dariska ahaa maalin walba waxba la weydiinaya anna maalin walba been cusub baan sheegaya kulligoodna way naga shakiyeen baxar baynu galeynaa hawsha aan xaga ku joojino saytir maya maxaad ka baqaysaa adigu anaa soo afmeeraya hawsha adigu istaji naag haday ku tiraahdo hawl baan soo afmeerayaana waliba hawluhu isku mid ma ahana mid shareed baan soo afmeeraya haday ku tiraahdo ogow shaydaanku hawsha kuma jira email buu fadhiyaaya iyada weeye dhug ba inta tiriyo waraaqad qortay ayay odaygeedu u dirtay ay ugu sheegaysay in inantoodii curadda ahayd oo la oran jiray Faadima la soo doonay odaygii baa waraaqada ka soo jawaabay oo yiri naamiyad waalantaha inanta miyaad iibisa macna see loo soo doonaa yaa weeye ninka dumarkii adduunka ku noolaa dhinta soo arki waayay magaalada iyo dalkaba Faadimo soo doonay Faadimada aqli caruurta markaasay tiri adigu ma inanta wixii alla u qoray iyo calafkii u yimi baad ka hortaagantaa macna see alla ku galay almuhim inantayadii in intay weligeed xaafadda iska dhex joogi lahayd mustaqbal la'aan odaygu markaa waxa uu ka baqsan yahay in ninka soo doonay inantiisa